marka sadiiq soo dhowaan leenahay waxaan u rajaynaynaa sadiiq inuu guuleysto waxaan idinka codsanaynaa dhalinyarada haddiiba aad run ka sheegaysaan inaad dalkan wax ka qabataan waa in sadiiq iyo inta la midto hanka noocaas la timaado aad gaddaan waa inaad iibisaan waa inaad seelgaraysaan waa inaad social media ka seelgaraysaan waa inaad cid kasta oo wax ku kordhin karta oo codkiisa soo saari karta oo mataqaanaa musharaxnimadiisa bannaanka keeni karta waa inaad ugu hiilisaan marka hiilka markuu maanta u baahan yahay sadiiq waxa waaye waa si hiilka ugu horeeya oo ah codkiina caqligiina aqoontiina iyo waxyaabahan social media oo bini'aadanka maanta runtii uu ka hormaray oo dadku ku soo bandhigaan aragtidooda marka sadiiq waxaan leenahay guuleyso ilaahay waxaan ka baryaynaa in sadiiqa aan aragno sadiiq oo baarlamaanka federaalka ku jira very soon inaan aragnaan rajaynayna insha allah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad iyo aad aan ugu soo dhawaynaynaa anigu markaan fikirkayga ka hadlo in badanaa odayaal iyo dad kaloo waaweyn iyo xildhibaanada kusoo garab istaagnay waxaan aad u dhiirigelinayaa dadka dhalinyarada ah iyo haweenku inay xildhibaanada noqdaan oo ayagu u istaagaan aad iyo aad aan usoo dhawaynaa hooyooyin aan nahay wiilasha waa soo barbaarinay waana soo tabantaabnay waa fikir cusub waa dad dhalinyar waa dad saaxada iyo waddanku wax badan ka faa'iidayo waxaan leenahay sadiiq kusoo dhawoow inta hartana anigu waxaan leeyahay istaaga adinkaa mudane waa mahadsantihiin si qaasan waxaan u mahad celinayaa musharaxa soo dhawoow xaqaaga waaye in lagula maamulo waxna aada maamusho in lagu xukumo wax aada xukunto inaad madax noqoto madaxna lagu noqdo waa xaqaaga hogaamiye cadaalada la rabaa hogaamiye cadaalada la rabaa intuu rabaa xukumo dalkan uu u baahan yahay wax naga maqano ma jiraan hanti walba waa haysanaa waxa naga maqan oo maalintii gumaysigu oo intana qaybiyo qabiil noo qaybiyey oo nayir xor baa tihiin oo laga bilaabo ilaa maanta oo maxaa cabdullaahi farmaajo oo madaxweyne yahay waxaan weynay hogaamiye cadaalada oo wanaagsan oo sharaf leh oo kitaabka ilaahay rasuulka ku toosan ayaan weynay kugu waajib noqonee xildhibaanow musharaxow inaad xaqa ilaahay aada wax ku hogaamido adna xaqaad yeelanay markaan ka soo noqo dhalinyarada waa sax waxaa le dhalinyaradu u badan waddanka waa aaminsana laakiin dee weli xoogaan leenahay hanala dirirnina intaan ka dhacayno sadiiqo waa daalnay waxaan kaa rabnaa horta inaad dagaalanto cadaalad ku dagaalanto oo aad wixii haddeer ka dambeeya dhalinyaradiinu inta is-aruursatiin dalkan in sharcigu kor maro shareecada islaamku kor marto ama sharcigii lagu heshiiyaa kor maro inaad u dadaasheen inkastay sax tahay in shareecada islaamka lagu dhaqmo midda kale waxaan rabaa waqtigu waa gaaban yahay sheeko dheeraan geli lahay waxaan sheekada dheer aan u gelin waqtigoo gaaban iyo dadka xoogaa daalay waxaa la rabaa ninkaas dhalinyarada qalbiga kaliya inaan loo dhisin odayaal fara badanona adeerayaalahaas maaragtay aan meesha iiga muuqda in la garab galo oo lala dadaalo aabbihiis waa maqan yahay waa la socdaa adeerayaashiisaa jooga wiilka kursiga ha lala soo dhiciyo dhib fara badan uu kala kulmayaa haddii odayaashu raacaan oo reerku raaco si sahlan uu kusoo helayaa waxaan aaminsanahay waqtiga maanta waa waqtigii dhalinyarada la rabay in la tijaabiyo walow odayaashu xoogaa cuqdad ka yara qaadeen maalintii dhalinyarada anagoo ku hadlay afka dhalinyarada ahana guddoomiyaha xisbiga shacabka rajeynayana siyaasiyiinta mustaqbalka rajada dhow kale inay siyaasadda ka qayb qaataan horta odayaasha waxaan u ballan qaadanaa inay amnina helaan caafimaad lacag la-aana helaan si dhowna looga warqabo odayaasha maaha in odayaasha la dayrinayo odayaasha waa soo shaqeeyeen wax badan bay soo qabteen iyagaana soo koriyey halkaana soo istaajiyey iyo maamooyinka laftigooda sharfan marka hawelwelinaan leeyahay muhiimaddu meesha taalla waxaa waaye waxaa la rabaa siyaasiyiin jaanta isla hesha oo dalka samata bixisa oo horumarkeeda ka shaqaysa oo heshiisyo badan aan ku jirin war ku dheeraan maayo xildhibaan sadiiq waa nin dhalinyaro ah waana dareemi kartaa waxqabad waxaa ugu filan dadka kala duwan ee siyaasiyiinta oo halkan isugu keenay oo garashadiisa iyo aqoontiisa isugu yimi marka waxaan rajaynayaa nin dhalinyaro oo shaqayn kara oo
maaragtay qaban kara waxna bedeli kara waaye isagana waxaan u rajeynayaa guul iyo hore socod baan u rajeynaya isbedel martisaafta kasoo qayb gashay saxaafadda dhammaanna waa idin mahad celinaya asalaamu calaykum waraxmatullah saad waxaan ku leeyahay hambalyo waxaan ku rajeynayaa horumar waxaan ka xumahay arrinta ahna in la dhahi $10,000 la dhigo haddana in la yiri argooyinka laag hala siiyo taasi haddii la iska daayin lahaa aniga waxaan aaminsanahay in Soomaaliya horumar ay gaaleed wax wanaagsan ay dhalan lahaayeen sida uu sheegay saaxiibkii qofkii hadda iga horeeyay dan Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha noolaato hal laga guuro qabiilka la guuro qaran wassalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh annaga sharaf ee noo taadaan dhalinyarada Soomaaliyeed nahay in dhalinyaradu sanadkan ay yihiin kuwa ugu badan ee u taagan kuraasta baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya sidoo kale tan waxaan rajaynaynaa qaybaha kala duwan ee hay'adaha dawladda in dhalinyarada ay noqon doonaan kuwa u taagan isla markaasina door firfircoon oo muuqda ka qaadan karo anaga waxaan aaminsanahay wadankan muddo ku dhow 60 sano inaad dibajoog ka nahay saaxadiisa siyaasadda Soomaaliya haddana waxaan aaminsanahay in la joogo waqtiga isbedelka dalkan wixii xoreeyay dhalinyaro ahaayeen 13 dhalinyarada ahayd dalkan maanta nabad iyo waxaan aan ku naaloonayna keenayna dhalinyaro ahaayeen anaga waxaan aaminsanahay awoodda caaboon ee nagu jirto energy-ga aan heeno iyo capacity-ga aan u heeno dawladnimada inaan ku xambaarno inaan dawladnimada ku xambaari karno wax badan dawladnimada Soomaaliya aan ku soo kordhin karno marka Sadiq iyo tiimamka kale ee dhalinyarada ee musharaxiinta anaga hadaan ololaha matalaada dhalinyarada Soomaaliyeed aad baan u soo dhaweyneynaa si dhawaan ula shaqeyn doonaa musharax walba oo dhalinyarana waxaan balan qaadeynaa inaan garab istaag siin doono ilaa aan ka geeno kursigiisa waxaa sharaf weyn ah maanta oo ay taariikhdu tahay 1 bisha 11 2020 inaan hortiina ka shaaciyo inaan ahay musharax xildhibaan dawladda federaalka Soomaaliya aniga Sadiq ahaan waxaan ku dhashay magaalada Cadaado waxaan ku barbaaray waxna ku bartay magaalada Muqdisho waxaan maanta hortiina ka cadeynayaa waxaan u doonayaa kursiga xildhibaannimo taas oo ah in aan doonayo wax qabad la taaban karo ku soo kordhiyo dadkayga oo aan ogahay in ay jirto baahi badan oo ay qabaan sidaas darteed aniga xogogaal u ah waxa jiro kalsooni badan aan ku qabo aqoonta deegaankayga iyo dadkayga ayaan waxaan go'aansaday inaan khibradeeda uga faa'iideeyo inaan ku matalo dadkayga kursiga xildhibaannimo ee aan maanta doonistiisa aan shaacinayo anigoo qayb weyn ka soo qaatay dib u dhiska dawlad goboleedka Galmudug qaybna ka ahaa dib u heshiisiintii kala duwaneed ee deegaan doorashadeeda ka dhacday way aragnimo igu filan haysta ayaan idin ka codsanayaa walaalayaal inaad igu garab istaagtaan doonista kursiga haddii aan ku guuleysto kursiga xildhibaannimo waxaan halkan ballan ka qaadayaa inaan ka qayb qaadan doono horumarada kala duwan ee Galmudug ka socda waxaana dadaal badan ku bixin doonaa horumarada jiro iyadoo dad badan ay wada ogsoon yihiin xildhibaan aan dadkiisa kala dhuuman mas'uuliyadda ee ayaga u shaqeeya muujiyana matalaad dhab ah iyo dadkayga inay ku riyaaqaan matalaadaas waxaan siyaasadda Soomaaliya ku dhaxleeyahay xiriir wanaagsan iyo siyaasiyiin kala duwan oo aan leeyahay waxaana aaminsanahay energy-ga dhalinyarnimo ee igu jiro biseelka iyo awoodda caaboon ee igu jirto inaan dadkayga uga faa'iideyn karo haddaba si ay taas inoogu suurto gasho hadafyadaas waxaan idinka codsanayaa inaad igu taageertaan doonista kursiga xildhibaannimo si aan uga wada faa'iideysano matalaad rasmi ah mahadsanidin